magaalada Qaahire ee xarunta dalka Masar ayaa waxaa ka furmay shirka baarlamaanada Carabta kaas oo looga hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladaha dalka Suuriya, Ciraaq iyo Soomaaliya iyo wadamada Carbeed ee qaarkood. shirka baarlamaanka oo ay ku midaysan yihiin 22 dawladood ee Carabta ah ayaa waxaa ka qayb galaya xubno ka socda baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo baarlamaanka Carbeed hordhigay xaaladaha ka aloosan dalka Soomaaliya. qodobada ugu muhiimsan ee shirkaasi looga hadlay ayaa waxaa ka mid ah cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, faragelinta ay dawladaha shisheeye ku hayaan iyo doorashada la filayo inay ka dhacdo dalka sanadka 2021. xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo shirkaasi ka qayb galaya ayaa sheegay in xubnaha baarlamaanka Carbeed ay amaaneen guulaha ay ka soo hoysay arrimaha dhaqaalaha, la dagaalanka musuqmaasuqa iyo sare u qaadida mashaariicda lagu horumarinayo caafimaadka iyo waxbarashada. sidoo kale waxa uu sheegay in si weyn looga hadlay faragelinta dawladaha shisheeye ay Soomaaliya kala kulmayso. sidoo kalena baarlamaanka Carbeed ay qaramada midoobay ka codsadeen in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta dhinaca hubka ee saaran si ay tayeenta ciidamadooda kor ugu qaado si ay u hesho ciidan ku filan ilaalinta badeeda, barigeeda iyo hawadeeda. ugu dambeyn waxa uu sheegay in baarlamaanka Carbeed uu ugu baaqay madaxda dawladda federaalka iyo xogaga siyaasadda in doorashada xilligii loogu talagalay ay ku dhacdo iyada oo la ilaalinayo cadaaladda. gabagabadii kulanka ay yeesheen baarlamaanka Carabta ayaa waxa ay uga hadleen xiisadda ka dhex aloosan qaar ka mid ah dalalka Carbeed sida Suuriya iyo Ciraaq taasoo si weyn ay ugu kala qaybsameen baarlamaanka Carbeed.